dowladda hoose ee degmada Burco ayaa munaasabad casho sharaf ah u sameysay guud ahaanba qurba joogga gobolka Togdheer ku sugan magaalada Burco ee xagaagan guud ahaanba yimid dalka casho sharaftan oo ay soo qaban qaabisay dowladda hoose ee degmada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda gobolka Togdheer gaar ahaan barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ku-xigeenka duqa degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo waliba xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi iyo jilayaal caan ah oo kamid yahay jilaaga kabtan Ciise Jawaan guud ahaanba madaxdan kala duwan ee munaasabadan ka soo qayb gashay oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa waxay hadallo dardaaran u jeediyeen qurba joogga iyagoo u mahad celiyay kaalinta qurba jooggu ay ka qaataan horumarka gobolka iyo degmada soo dhaweynayna magaaladiinni ku soo dhawaadana dhamaantiinba inuu soo cashay doona insha Allah qurba joogayga waan jecelahay oo ku faanaa وينوغا علامتي yihiin qurba joogta reer Soomaaliland qurba joogta reer Togdheer sababtoo ah Togdheer marka la qiyaaso horumarkeeda cid xuduudta oo ahi waxa weeye jamcaha ugu wacan ka geystay marka laga hadlayo dib u dhiskii Burco ama gobolka Togdheer waxa weeye qurba joogta reer Togdheer ee dibadaha ku maqan wax soo saarka door weyn baa idinka banaan in doorka ka qayb qaataan baan aad iyo aad u jecelahay oo kole deer dhaqankii dawladda horumaray wax waa ka haysataan ina ku dhiirataan inaad sharikada samaysataan oo isu tagtaan ina idinkoo isaho shakhsiyada dalkiina cidii wax ka qabsan karaysaa ka qabsato jaanisyo badan baa ka furan ayaa la idinka baahan yahay xubno kamid ah qurba joogga casho sharaftan loo sameeyay ayaa iyaguna ka mahad celiyay munaasabadan ay madaxdoodu ku maamustay iyo qurba jooggu waxaan in aan oranayaa waxaan u keenaa caruuraha in aynu dhaqankeena iyo barno iyo hawsheena laakiin haddii aanu hamburgerka aan la ku siin jirnay xaqana aynu ku siino waxba ma aynu bedelin runtii marka waxa weeye dhalinyaradeena aynu tusno dhaqanku wuxuu yahay systemku wuxuu yahay aynu soo dhaweyno aynu runtii dhinaca kale Cabdirasaaq Cali Kildi oo kamid ah qurba joogga gobolka Togdheer ayaa shahaado sharaf ku maamusay barasaabka gobolka Togdheer iyo xildhibaan Cabdilaki Xasan Nuur oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Burco isagoo ku amaanay mas'uuliyadda waxqabada ee ay muujiyeen labadaasi mas'uul gobol nabtoon dad wada jira gobol midnimadiisu ay midaysan tahay dad wada shaqeynaya dawlad iyo maamul baan u yimid barasaabka gobolka Togdheer iyo xildhibaan Cabdilaki ayaa iyaguna Cabdirasaaq uga mahad celiyay guud ahaanba sida uu garowsaday waxqabadkooda waa Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.